magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa maanta ka furmay shir ay lahaayeen mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanada Jubbaland. warbixintaasi waxaa noo diyaariyay wariyaheena Axmed Toronto. shirweynahan oo magaalada Kismaayo uga furmay waxgaradka salaadiinta aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa socon doona muddo 3 cisho. waxaa shirka ka qayb galaya odayaal dhaqameed, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, siyaasiyiin iyo aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo ka kala timid dalalka Kenya, Ethiopia, Mareykanka, Yurub iyo dalalka Khaliijka Carabta. shirkan oo wada tashi ah waxaa lagu lafagurayaa masiirka iyo aayaha beesha, waxaana la rajaynayaa in dhamaadkiisa laga soo saaro warmurtiyeed ay ku cad yihiin natiijada shirka. qaar ka mid ah dadkii meelaha kala duwan ka yimid ee shirka ka qayb galayay ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada shirka iyo sida uu noqon doono miro dhalkiisa. ka yihiin kuubalka iyo hogaamada beelaha kuumadeed ee ku nool dowlad goboleedka Jubbaland. shirka waxaa kaloo ka soo qayb galay xubnaha golaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, xubnaha wasiirada dowladda federaalka ee beesha, xildhibaanada beesha ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, xubnaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ee beesha, xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ee beesha kuumadeed iyo mas'uuliyiin badan oo beesha ka tirsan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay afsamo oo xukuumo oo isku imaaday oo qaliyaysa maanta aad baan ugu faraxsanahay. cabdiqaasim boqolkiisii yaardi wuu soo orday, cabdullaahi yuusuf axmed buu u dhiibay, wiil Soomaaliya keenay, sheekh shariif baa ka soo qaaday, meel wanaagsan buu keenay, xasan sheekh maxamuud baa ka soo qaaday, meel wanaagsan buu keenay. 7 qodob baa dawladda loo dhiibay oo wadanka Soomaaliya oo dhan ay leedahay. dib u heshiisiin koow Soomaaliya inay heshiiso israacdo, markaa qura yeelato, hantida muuqato ee maguuraanka ee boos iyo baabuur, boos iyo guri iyo beer in la isu celiyo. 2 resource-ka wadanka ee dawladda federaalka soo galayo toos in loo qaybsado. 3 ciidamo qaran oo amisom mustaqbalka dhow kala wareego oo gees walba federalismka inta ogol laga soo qoro in la qoro maamulkana ay la wareegaan. qaanuunka qabyada ah in la dhameystiro. 1 man 1 vote wadanka in la gaarsiiyo. Somaliland xal in loo helo. wixii loo dhiibay dawladdan intaas ay ahaa. Axmed Cabdi Maxamed, Axmed Toronto, Jubbaland TV, Kismaayo.